aniga dad igu tiraa maanta malaayiin baan ku siinayaa ee waxyaabaha qaar ka hadal ma rabo inaan ka hadlo malaayiin iska dhaafay views yar iyo wax malaayiin hadda xataa i keento because waxa weeye sharaftaydii magacayga sumcaddii diintayda wax kasta aniga iga qaalisan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa coach mahad aad baan idin salaamayaa waxaan isku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh meel kastoo caalamka joogtiin kusoo dhawaada channelkayga inta ku cusub intii hore noola joogta aad iyo aad u mahadsantihiin maadaama aad subscribe noo tihiin insha allah sii share garay muuqaalkan lana sii wadaaga asxaabtiina iyo dadka maaragta aad jeceshihiin inay maaragta ka faa'iidaystaan dadka nagu cusubna insha allah waxaan ka codsanaynaa channelkan inay maaragta subscribe ku sameeyaan waxyaaba badan ood ka faa'iidi doontiin insha allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mawduuc muhiim ah oo aan isiri waad ka hadli kartaa xaq baad noo leedahay inaad ka hadasho dad badanna waxaa laga yaabaa in ay markaas ka faa'iidaystaan ama uu hadalkaagu u noqdo dhiirigelin ama uu u noqdo waano ama uu u noqon karo maaragta hadal markaas waxyaaba badan ay samayn lahaayeen ka joojiya maadaama aan ka mid ahay youtube-leyda dadka youtube-ka isticmaala especially social media isticmaala especially haddana youtube sii isticmaala maadaama aan ka mid ahay dad badanna aan isku barannay aad iyo aadna aan u jeclahay social mediaha dad badan oo qiimo leh oo agteyda maaragta sharaf iyo cisi iyo qiimo kulena aan ku bartay oonan aqoonin 3 sano ka hor muddo 3 sanahan social mediaha isticmaalaa facebookan aad u isticmaalaa youtube-kana waan isticmaalaa dad badan oo qiimanahan ku bartay waxaan ogaaday marka social mediahu inuu yahay midi laba af leh oo aad maaragta marba dhankii aad maaragta u adeegsato ama labada dhinacba aad ku jari karto inta badan anigu waxaan u adeegsadaa dhanka wanaagsan waxaana ka hadlaa nafaqada iyo nutritionka iyo qofka lifestyle-kiisa uu ku bedeli karo dhanka miisaan dhimista iyo miisaan kordhinta iyo muscle game iyo waxyaabaha nutritionka lifestyle-ka waxyaabahaasaan ka hadlaa inta badan dad badanaana ka faa'iidaystay maanta marka waxaan rabaa inaan wax mawduuc kaa ka duwan aan ka hadlo maadaama social media uu yahay meelan aad u jecelahay aan jecelahay inaan maaragta sii isticmaalo anoo dhanka wanaagsan maaragta ka isticmaalaya insha allah waxaa maalmahan soo batay arrin ayaan rabaa inaan ka hadlo pranki inay dhalinyaradii soomaaliyeed samaynayaan ama hooyooyin ama faamiladii ama dadkii oo dhan oo dee maanta youtube-ka isticmaalaya brankigaasoo iskugu jira waxyaabo kala duwan mid naxadin leh mid run ah mid been ah mid laysla ogyahay oo la wada samaynayo maaragta iyadoo dee laga leeyahay maaragta in views ama lagu helo ama dee caanimo waxyaabo badan anyway wixii rabaa ha laga lahaado marka waxaan rabaa brankiga la samaynayo ama macnaha qaababka kala duwan ee wanaagsanayne social media youtube-ka oo isticmaalayno qataraha ka imaan kara inaan idinla wadaago especially weliba faamilada anigu faamila ana aab baan ahay markaad youtube soo gasho ood branki samayso oo waxyaaba aan wanaagsanayn weliba aad samaysiin adiga iyo xaajigaagu ama hooyadii iyo xaajigeedii ay sameeyaan waxyaaba badanaa ka dhalan kara horta marka koowaad adiga sumcadaadii yaa ku lumaysa oo adoo isle dad kasbo ayaad sumcadaadii ku weynaysaa magacaagii quruxda balahaa magacaagii quruxda badnaa wixii dadku kaa aaminsanaayeen haddii xataa aan hore lagu aqoon markaasa waxaa lagugu baranayaa waxaan fiicnayn ama wanaagsanayn midna waan kuu sheegayaa social media maanta waxa aad ku duubto weligood wuu ku jirayaa laakiin adiga macnaha in lagu hadal hayo ama lagu sheego waa maalmo yar qof kasta social media marbuu wax ka soo ahaa ama uu soo haystay ama magaciisu caan ka ahaa maantana dee dad badanoo waxaa jira dee maanta aan la haynin laakiin haddii aad tahay qof wanaag ku dhex jira oo wanaag bulshada maaragta usoo bandhiga oo markasta wax wanaagsan dadkiisa la wadaaga waxaad ogaanaysaa dee ilaahayna inuu raalli kaa noqon doono dadkaaguna ay maaragta ayaguna kugu markasta kuu ducaynayaan ay kugu farxi doonaan ay kugu qanacsan yihiin because markasta waxaad la wadaagtaa wax aysan maaragta ka naxaynin wax maaragta noloshooda dadkii wax ka bedeshaa waxbaad ku soo kordhidaa marka dadkaas way ku jeclaanay wayna kula joogi doonaan marka social media maanta wixii aad soo geliso ama xumaan ha noqoto hadday xumaan noqoto noocay rabta ha ahaato muhiim maaha inaan taa dhahno hadday xumaan aad soo geliso social mediaha adiga cimrigaagu waa kooban yahay waqtigaad dhimanaysana ma ogid laakiin waad dhimanaysaa waxaad ogaataa maalintaad dhimato oo social mediaha xumaan kuugu jirto adugu aad soo gelisay waxa weeye haddee qabrigaagay kugu bilaabmaysaa xumaantaadii
okay halka qofka kale wanaaga geliyay asagana maaragta loo furayo albaabadii jannada khayrkiisii waxyaabihii wanaagsan ee ka hadli jiray muxaadarooyinkiisii gubaabadiisii dhiirigelintiisii caawintu dadka caawinayay wanaagiisii taladiisii tusaalihiisii wixii oo dhan dadkii maaragta wax wanaagsan loo ducadii ay dadka ka helay waxaasuu guranaya halka aduguna aad markaa xumaantaadii ay kaaga horeysa meeshaas weligaana way kuu soconaysaa weligaana waa wax kuu soconayo kuu jiraya ilaa marka waxa weeye maalinta qiyaamo lagu soo horfariisiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala hortiisa lagu keeno marka waa wax marka soo kama fiicna marka maadaama ay dad badan inay ogeynaaba laga yaabaaba arrinkaas social media maanta waxaad geliso haddaad adigu xataa youtube-kaa ka saarto ama aad facebook-kaa ka saarto dad kale kaa qaadanaya hal video waad soo gelisay dad baa qaatay youtube-kooday gashteen ama reaction ay ka bixiyeen ama mid kale u sii dhiibeen ama facebook marka waxba kama qaban kartid laakiin waxa wax ka qaban kartaa kow hadalku intuu afkaaga ku jiro labo videoga markaad samaydiin waxaad ku samay kartiin inaad markaas waxa weeye dib u habeyn ku samaysiin oo kale oo aad ka saartiin wixii xun wixii markaasaad wixii xukumi kartaa maalintuu soo gala youtube-kaaga qalaas hadduu 1 minute ku jiro waa waxay rabaa lagu samayn karaa video waa la degsan karaa marka waxaad jira waxyaabo badan oo khataro badan magacaagii sumcadaadii aad ku cayaartay tii community aad ku cayaartay tii family-kaaga aad ku cayaartay midda kale hooyo aab baa ku dhalay family aad leedahay asxaab ku jecel aad leedahay maaragta dad close oo isku dhowdihiina jira horumarkaaga jecel yihiin marka dadkaasoo dhan waad weynaysaa adigoo isla dad kasbo mid kalena waan kugu darayaa youtube-ka waxaa yiri lacaga laga sameeyaa okay lacag waa laga sameeyaa video maanta soo gelisay waxyaabo qaldanaad soo sheegtay ama si qaldanaad maaragta u soo hadashay videogii waxa ku daawaday ba adigu 100,000 ama 200,000 lacagta ugu badan oo videogaas ku sameey kartaa haddii cirka aadood wax kasta ku daawadaan €1 kama badna ama $1 kama badna marka ka waran qof dhan oo maaragta sumcadiisii iyo sharaftiisii iyo diintiisii iyo soomaalinimadiisii iyo dhaqankiisii iyo islaamnimadiisii maanta $1 siisanaya ka waran aniga dad igu tiraa maanta malaayiin baan ku siinayaa ee waxyaabaha qaar ka hadal ma rabo inaan ka hadlo malaayiin iska dhaafay views iyo wax malaayiin hadda xataa ay keento because waxa weeye sharafteydii magacayga sumcadeedii diinteyda wax kasta aniga iga qaalisan iyo waxaan de markaas waxa weeye dhan walba marka mid kalena waan idiin sheegayaa faamilada muuqaalada ay duumayaan waxaad ogaatiin markaad faamil tihiin oo caruur leedihiin caruurtiinu waxay daawadaan youtube-ka ilmaha ciyaalka waqtiyadan jooga mid kasta wuxuu haystaa mobile yar iyo laptop yar iyo tv-ga laftirkiisa ayaa youtube-ka laga geysanaya marka haddii ka waran waxyaaba bilaa anshaxa intaad samayso oo wanaagsanayn ay maanta youtube-ka ciyaalkaaga aabbi hooye ka arkayaan oo wax fiican aan samaynaynin oo hadallo xun ku hadlaya oo waxyaabo qaldan samaynaya oo cunug yara ku daawanayo marka asaguna maxaad ka sugaysaa marka maxaad ka malaynaysaa cunugaagii yaraa marka miyaad tarbiyaysay kuwii kale mid kuwaagaba ka soo qaad kuwaagaba ka soo kuwii kale ee ilmihii aad habareerta u ahayd ama adeerka u ahayd ama abtiga u ahayd ama maaragta faamilka aad Soomaaliyeed ka waran markay ku daawanayaan xumaan kugu arkayaan waxyaabo xun ay ka daawanayaan wanaag aysan kugu baranaynin ka waran marka waxaad samayn kartaa marka waxyaabaha fiican oo de viewsna aad ku heli kartiin magac iyo sumcad iyo duco iyo ma ilaahayna raali ka yahay ayaad samayn kartiin dadku aad ay ugu badan yihiin qaabo badan oo waxa jira dadka aad markaas waxa weeye ku wacyi geli kartiin kaliya maahan inaad maaragta aad muuqaalo qaldan soo geliso youtube-ka because youtube-ka waan jecelnahay waxaan rabnaa inaan kusii shaqaysano waxaan rabnaa inaan dad badan ku baranno waxaan rabnaa inaan dad badan maaragta wanaageena iyo waxa aan wadno ku gaarsiino waxaan jecelnahay maanta de inaan inuu shaqadeena noqdo oo de youtube-ka ama social media maadaama maanta halkan aan joogo gurigan aan maanta joogo aan Germany aan joogo maanta ku noolahay adigana aad iga daawanaysa maanta Australia ama Canada ama New Zealand ama South Africa ama Soomaaliya ama Muqdisho ama Hargeysa waxaan haystaa power aan inta codkayga ku gaarsiin karo maanta ma jirto maanta uma baahan inaan BBC u wacdo uma baahan inaan wax kale u wacdo just inaan video qurux badan soo duubo message-kayga kugu soo gudbiyo adoo gurigaaga jooga aad daawato marka waa wax macnaha waa fursad opportunity aan maaragta inaba aan caadi ahayn oo la gaaray weey marka meeshii saas ahayd
soo ma wanaagsana marka inaan si fiican aan uga faa'iidaysano dhanka wanaagsan aan ka abaarno maaragta aan wax fiican ku soo bandhigno dadkii uga faa'iideyno haddaad noqoleed waxbarashad ku soo bandhigi kartaa quraanaad dadka ku bari kartaa muxaadarooyinaad dad aad u soo geli kartaa waxyaabo kale iyo businessaad ku samayn kartaa xalaal ah okay dhiirigeliyaad noqon kartaa dadkaad ku dhiirigeli kartaa dadkaad isku bara kartiin waxyaaba badan samayn kartiin maalin ayaan waxaan arkay gabadhayda yartaa gabar yar ay joogta oo youtube-ka daawanaysa mobile weliba kaga jirta maxay daawanaysa ma taqaaniin youtube-kaygay daawanaysa video anigu aan duubay daawanaysa weliba intay waan soo kor istaagay video yaraan ka duubay okay videogana waan la wadaagayaa maxaa daawe baaba youtube ka wallaahi ما شاء الله marka ka waran adu maba aadan ka fakirinba waxyaabo badan oo waxa jira qatar ah oo aadan ka fakaraynin maanta balka gabadheedii yara 5 sano jirtay maanta youtube-kii hadday daawanayso markay daawato ay ugu aragto waxyaabo qaldan aniga halkan aan leeyahay waxaas lama sameeyo sidan lama yeelo waxyaabaha ma wanaagsana aan ku leeyahay siday maaragta siday macnaha iga qaadanaysaa marka waxaan leeyahay marka dadka hadda ku soo socda youtube-ka soo gelaya maqlay lacag baa youtube laga helaa yes youtube-ka lacag waa laga helaa haddaad xumaan maaragta ku raadinana waad ku helaysaa haddaad wanaag ku raadisana waad ku helaysaa youtube-ku ma yaqaano isagu macnaha ninkan youtube kale ma yaqaano xumaanaa la sheegay khayraa la sheegay isagu waa qof gaala laakiin adigu markaad qof islaama tahay adiga waxaa lagaa rabaa meeshaad tilaabada aad qaadayso iyo meeshaad lugtaada dhigayso inaad ka fiirsato adiga lagaa rabaa waxa aad cunayso ama shaqaysanayso inay xalaal yihiin inay xaaraan yihiin inaad ka fiirsato tusaale ahaan haddaad rabto inaad xaaraan cunto kale waxyaabo badan oo xaaraan asqaabo badan aad xaaraanta cuni kartaa qamaaraad samay kartaa waxyaabo badan samay kartaa maaragta maqaayadaha aad ka shaqay kartaa doofaarka lagu gado maaragta qaansiirka kulli wax kastaad gadi kartaa macnaha waa haddii aadan xalaal rabin wey marka ka waran haddii aad leedahay maanta qaansiirkana ma gadayo maaragta mana cunayo qamrigana ma gadayo dukaanka qamriga ma shaqaynayo waxaasoo dhan maanta oo maxaa dhacay may waa xaaraan ka waran haddaad marka youtube-kii ama social media lacagtii aad ka shaqaynaysa ee xaaraan kaa noqoto oo dadki maanta dee aad waxyaabo xuno fusqiya oo laga xishoodo aad maanta samaynayso absolutely anagu ma dhahayna hebel iyo hebel iyo hebel laakiin dhalinyarada social media soo bilaabaysa ama youtube channel raba inay hadda soo samaystaan waxaan idiin sheegayaa waxyaabaha qaar ka digtoonaada magacna kuma helaydiin sumcadna kuma helaydiin sharafna kuma helaydiin aakhire iyo adduunna faa'iido kama keenaysiin maalin aan dheeraynaad ka baxaydiin social mediaha idinkoo fiideo badan laydinka duubay fiideo badan laydinka qaatay muuqaaladiinu meel kasta ku jiraan magaxumo iyo sumcad adduunka la jooga aakhirana ay idin sugayso ilaahay su-aalihiisii maaragtay maalintii qiyaama ay idiin dhiman tahay waxaan inkaga digayaa marka oo aan idinkugu nasteexaynayaa haddaad samaysanayso youtube channel waxyaabaha qaar ha samaynin waxyaabaha qaar aan anshaxa u wanaagsanayn bili-aadnimada u wanaagsanayn soomaalinimadeenna ku wanaagsanayn islaamnimadeenna ku wanaagsanayn dhaqankeenna suuban ee soomaalinimo aan ku wanaagsanayn diinteenna aan ku wanaagsanayn ha samaynina because maanta haddaad xataa tahay dhalinyaro berri waad guursan doontaa berri hooyaad noqon doontaa aabbaad noqon doontaa caruurtaadu youtube-kan way daawanayaan caruuraha kale ee kuwaygii iyo kuwaagaa daawanaya nooma wanaagsana just anigu message-keyga maanta waxaan u gudbinaya waxay tahay laga yaabo inay dad badan oo anfaco hadalkaas maanta because kama hadli jirin waxyaabaha noocaana aniga inta badan laakiin sometimes mararka qaar maadaama aad social mediahii ku jirto waxyaabo badan oo jeclaysan aad arkaysaa marka inaad ka hadasho marka waa muhiim oo dee waxa weeye rasuulkeena wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ama khayr ku hadal ama aamus okay marka waxa aan ku hadlayno maantay oo dadka la wadaagayno waxaan aaminsanahay inay wax wanaagsan yihiin oo dadkii dee u nasteexinayno marka dadkaasa waxaan rabaa insha allah youtube-ka waad soo geli kartiin waad ka soo mid noqon kartiin laakiin magac fiican iyo waddo fiican iyo shaqo fiican insha allah ku soo bilaaba kuna soo gala waana idinku taageeraynaa hana isdhihin maantay okay way jirtaa inay dadku xumaanta inta maanta waa aqaaru zamaan inay dadku xumaanta aad u xiisay u daawadaan
aniga hadda youtube-kayga haddaad gashiin fideoyada ku jira subscribe-kaygu ma badna waa ilaa 8,000 waxaa laga yaabaa inuu maanta wiil uu soo samaysto youtube isla maanta inuu 8,000 gaaro subscribe-kiisu 8,000 gaaraan ama 10,000 gaaraan waxa laga sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay dadkii waxay jecel yihiin maanta ay daawanayaan waqti gelina xumaantii u fud marka waxa laga yaabaa wiilkaas inuu soo geliyo ama gabadhaas inay soo geliso waxyaabo aan de wanaagsanayn oo kale marka dadkii way ku yaacayaan waa aqru zaman wa laga yaabo maanta anigana inay de marka dadkii leeyihiin ninkan waxbuu ka hadlayaa ninkan waa caajis waxa weeye nutrition nafaqo iyo miisaan dhimis iyo miisaan kordhin iyo lifestyle iyo waxaas oo ka sheekay cuntuba ka hadlaya duu rabo okay laga yaabo inuu isleeyahay laakiin uu raadinayo maanta qofkan ka hadlaya fisqiga ama xumaanta ama siyaasad ama wax kale inuu maanta iga doorbidaya aniga maanta way u badan tahay no problem laakiin qof waxa fiican inuu isku kalsoon yahay anu weligay qof share out isabay ma dhihin weligay qof caana ma dhihin maaragta waxa weeye maaragta ii kala kiciyo kale aniga isku kalsoon youtube-kayga aniga samaystay magacayga ku samaystay insha Allah dad badan aan ku bartay quality-ga dadka aan ku bartay oo maanta de waxa weeye aan family-ka nahay ayaa waxay iiga qiimo badan yihiin maanta malaayiin aniga xumaan ugu barata hadda maanta coach mahad haddii aan ka hadlo waxyaabaha qaar maanta on youtube-kayga soo dhigo waxaan hubaa laba beri gudahood videogaas inay 100,000 dad ka badan daawo doonaan maaragta subscribe-kayguna uu bada doono laakiin maxaa ku dhex jira wey waxba kuma dhex jiraan ilaahana ka magan galnay taas insha Allah aad baan idin salaamayaa waxaan jecelahay inaad sii gaarsiidiin muuqaalkan maaragta oo sii share gareeydiin insha Allah hadduu idinla wanaagsanaaday oo aad u aragteen inuu macquul yahay si aan uga faa'iideyno maanta dhalinyarada Soomaaliyeed ee badan social media ku soo badanaya maanta waxa weeye businesska ka sameynaya maanta waxyaabo badan sameynaya insha Allah si uga faa'iideystaan haddaad u aragtay inuu yahay macquul muuqaalkan ama videogan insha Allah u sii gudba asxaabtaada lana sii wadaag una sii share gare insha Allah biidnillaahi kariim haddii aad nagu cusub tahana mar kale waxaan kaa codsanayaa subscribe inaad channelkeena ku samaydo si aad waxyaabo badan maaragta aad kala socoto insha Allah biidnillaahi kariim haddaad youtube-kayga ku cusub tahood oodan hore ula soconood maanta un videogayga aragtay waxyaabaha aan ka hadla saad ogaatay iyo waxa aan ahay iyo waxa aan ka shaqeeyo iyo waxyaabaha aan dadka ka caawiyo youtube-kayga videoyada kale hore u sii gal si aad u ogaato insha Allah haddaad dabacdeen ila soo xiriirtana insha Allah teleefanadeeda ku hoos yaala iyo maaragta social media-hayga insha Allah aad baan idin salaamaya insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.